بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتا aan jeclahay meel walba dunida ka joogtiin ku soo dhawaada qaxootiga Radab TV sidaad horaan uga barateen arrimaha ku saabsan qaxootiyada caalamka aan ku bilaabo qodobkeena koowaad waxaan ka hadli doonaa wararkii ugu dambeeyay oo ku saabsan xiriyaha qaxootiga Radab iyo Kakuma ayaan dul istaagi doonaa aan ku bilaabo qodobkeena koowaad Berito oo taariikh 5 bisha koowaad 2023 oona tahay khamiis waxaa si rasmi ah u bilaaban doono raashin qaadkii ee saddexda xira sida xirada ifo xirada dhagaxley iyo xirada xagdheer raashin qaadka ayaa berito bilaaban doono sida caadiyan maadaama sanad cusub la galay feesto oo lagu daahay oo sidaas darteed taariikh 5 dib loo dhigay ayaa haddana ugu dambeys berito bilaaban doono sida hore oo jadwalkii hore lagu shaqeyn doonaa jadwal hore ayaa lagu shaqeyn doonaa waxaana la qaadan doonaa raashinkan wuxuu ku kooban yahay galey saliid iyo digir iyo saliid wuxuu ku kooban yahay marka la soo celiyo waxa la qaadan doonaa galey digir saliid iyo saabuun ala nafarne wuxuu qaadan doonaa hal xabo marka sidaas ayaa jirto raashinkana sida caadiyan waa saddexda baxro sidaas loo qaadan haddii aan ku bilaabo xirada dhagaxley sida hore waa jadwalku waxa loogu madelin berito waxa qaadan doona koole iyo tobanaale iyo labaale yaqaan labaale iyo tobanle iyo koole ayaa qaadanayaan sidaas ayay socon doontaa marka haddii aan dhaco qodobada kale oo xiisaha badan wararkii ugu dambeeyay oo ku saabsan dibadajinta wadan saddexaad maalmahan maadaama sanad cusub la galay oo fasax dheeri la jiray fasax Christmas ama gaalada si yaqaan Christmas iyo fasaxyo kala gaaban bilaha u dambeeyso 12 hay'adaha sama falka dhamaan shaqaaloodu way yareen fasax ayaa loo dhigaa qaar wali fasaxyo ku maqan qaar way soo laabteen marka shaqooyinka tooskooda waxay bilaaban doontaa berito iyo wixii ka sii dambeeyay ay bilaaban doontaa bisha u dambeysay muuqaalka u dambeeyay soo dhigaa waxay ahayd dad la wacay oo la dhahay isdiyaar garoowa oo face amal CIS ama INSD loo yaqaano iyo caafimaad iyo dad falays waay hada naftirooda waa la wacay bis oo kaliya waxa la isdiyaar garoow reerku wax ma maqan yahay maya waxa ka maqan diyaar garoow bis ayaa la dhahay markaas ayaa hadda loo shaqeyn doona maadaama sanad cusub la galay oo sida hay'adaha ama sida IOM ama qolada dib u dejintu qaabilsan sida horaan u sheegan in sanadka cusub shaqooyinka dadajin doonaan ay boobsin doonaan sanadkan 2023 ama sanadka cusub hadda bishay in sanadka hore ka fiicnaan doona ay balqaaden balse waan arki doona wixii dhici doono anagana mar walkasta waxaan soo gudbinaa wararka waxay noo sheegaan iyo waxyaabaha ay qaban doonaan ayaan bulshada ula wadaarnaa marka sidaas ayaa jirto mar walba ku xirnaada qaxootiga Radab TV si aad u hesho wararka ugu dambeeya ku saabsan xiriyaha qaxootiga Radab adigoo gurigaada joogto ama adigoo ka maqan xiriyaha qaxootiga ka maqan dad ayaa Mareykan joogo dad ayaa joogo Soomaaliya dad ayaa meel Kenya ka baxsan joogo muuqaaladan ay la soo warbixinada marka midaas waa aad u fiican adduunka hormar ayuu gaaray inaad guriga iska fadhido maahan laakiin balse anagana warar saxan ayaa mar walba soo dhigaynaa muuqaaladan hal daawado marka insha Allah wixii soo kordhane muuqaaladan dambe ayaan soo dhigi doonaa insha Allah isbedel cusub oo loo soo daray sida hadda dadka kabaanaha qabo hadda waa horumarka boofis la marin jiray markii ay falaay gaaraan ayaa la baari jiray laakiin hadda isbedelka cusub loo soo roriyay hadda waxa kamid ah first face marka qofku marayo ayaa la soo baaray inuu kabaana qabo inuu kale ayaa la sii ogaanaya marka sidoo kale waxaa la rajeeyaa sanadka cusub dhexdiisa in isdhexgal bulsho sida dadkan qoladan Kenyaanka iyo qaxootiga in isdhexgal doonaa sida horaan u balaqaatay dawladda dhanka DRA iyo sidoo kale UNHCR haddana way ka wada shaqeyn doonaan sanadka cusub hadda ayuu bishay in qaabka loo horgelin lahay ayaa la bilaabi doonaa waqtiga la bilaabi doona waan arki doonaa laakiin way ku dadaali doonaan iyo wixii kale muuqaalada la socda insha Allah